ma doonaysaa inaad caloosha iska jartid marka u horeyso shaax la cabay ama caleen la cabay oo calool jaraysan male marda labaad kareem la marsaday oo meel la fadhiistay calool jaraysan male funaanad la xirtay oo meel la fadhiistay calool jaraysan male baalti la xirtay oo meel la fadhiistay la isku duuciyay calool ay jaraysan male oo marka u hore marka labaad hadii uu jirkaagu uu hilibka shalay markuu fuulay hadana si fudud uu iskaga dago waxa kugu dhacay waxa loo skin loss skin kaada wuxuu noqonaa balaq uu noqonaa meesha waxa ku dhaanto in buurni la iska ahaato waliga laha marka shaaxa la cabayo kareemka la marsanayo beltiga la xiranayo waxa soo dhan waxay noqonayaan support kaas oo ah xilligii uu caloosha ka jari lahayd inay ka soo hormarto xilli hore ka jar ma caloosha gabdha Soomaalidaanahay raaxada lagu hoosteeda ka raadinaa laakiin wax walba waa loo rafaadaa waqti waa la galiyaa time baa la galiyaa mid kale gabadha markay ilmo dhasho waa labo gabadha markay gabar tahay calool kaliya iska jaraysa ama jilib kaliya iska jaraysa meesha hooyada ilmaha soo dhashay ay hilib iska jarayso hadana baruur iska jarayso hadana ay iska jaray ay adkeenayso mansolka caloosheeda hooyada markuu cunugeeda caloosha galo mansolka caloosha way kala baxaysaa sida hadda sawirkaas oo kale aan soo qaaday diastatic rectum bay dhahaan six bag baa caloosha hadda kala baxay qaarkood wuu kala baxay qaarkood ma kala baxo laakiin hooyadu haday ilmo dhasho mansolka caloosheeda wuu qafiy wuu jaljalcaa anakoo kale hadda waxaan haynaa funaanadooyin oo loogu talagalay mansolka inay tight ka dhigaan caloosha tight kaaga dhigto marka oo cariiri ah marka jimicsiga sameynaysidna dhidid fara badan ka keenayo marka samee jimicsi si aad u hesho jir qurux badan calooshana si qurux badan iska jirtid laakiin meelaha fadhiisana caloola iga go'ay adduunka meel ay ka dhacdo male